waraxmatullah. Kusoo dhawaada Dambar Academy. Waxaan muuqaalkan ku duubaynaa sida loo isticmaalo cPanel account. Waxaan kugu talinaa cashirka ka horeeyay inaad soo daawato YouTube channelka Dambar Academy. Cashirkan waxaan ku baran doonaa sida loo manage gareeyo cPanel account. Waxaa soo furi doonaa accountkaas ayaan ku qoraynaa waa company-ga aan wax ka iibsanay. Waxaa dhahaynaa portal.hostgator.com. marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan soo bedelano passwordkeena iyo informationka aan ku gali lahayn inaan soo bedelano. I hope inaan qalday. waxaan dhahaynaa portal.hostgator.com. automatic hadda waxaana la geey doonaa eridan shaqada ay qabanaysa haddii aan rabno inaan jilcino. halkan waa meesha aan ka maamulayno cPanel accountkeena meesha aan ka maamulayno. haddii uu naga dhici rabo meesha aan ka ogaanayno. haddii aan cusboonaysiinayno meesha aan ka cusboonaysiinayno. haddii aan password iyo waxyaabaha iska bedelayno waa environmentiga aan ka bedeli lahayn. okay, wuxuuna keenay eridan. waxaa u baahannahay marka halkan sida muuqaalka horeba aan ku sharaxnay inaan gelino username-ka aan annaga samaysanay marka aan loginka sameynaynay. marka meesha sita d-da marka hore si qaldan iga qorantay. waxaa dhahaynaa Dambar waxaa dhahaynaa badge halkan waxaan gelin doonaa passwordka aan soo abuuranay marka hore. kadib waxaa dhahaynaa login. haddii informationka aan halkan gelinay uu saxan yahay waana la gudbin doonaa. haddii kalena meeshaan ayaan ugula soo celin doonaa. okay, sidaa aragnaba waxaana loo gudbiyey dashboard area anaan la gudbiyey. meeshaan kuma dheeraanayno waxyar un baa kusoo koobaynaa. laba qaab ayaa meeshaan loo isticmaalaa. waxaa uga baahannahay annaga eridaas ay ku qoran tahay hosting iyo eridaas ay ku qoran tahay domain. midka saddexaad waxaa waaye waa billing information. iyo haddii qoladan la jaadgaraynaysidna waxaad taaban doontaa meesha ay ku qoran tahay jatin ay ku qoran tahay ayaad taaban doontaa. wuxuu kuu gudbinaa area support iyo waxyaabo lamida ayuu kuu gudbin doonaa. marka anaga ma rabno waxaa dhahaynaa waxaan ugu celisaa accountkeena. okay, waxaa dooranaa area hosting. waxaa rabaa cPanelkeyga inaan informationkiisa helo. marka annaga waxaa haysanaa domainkaas oo ah dambarstudents.com. haddii waa soo booqanaynaa aan dhahno dambarstudents.com waxaa dhihi doonaa enter. waxaan keeni doonaa halkan. marka annaga waxaa sii raacinaynaa /cPanel wax loo yaqaano. waxaana la keeni doonaa login oo my cPanel aan la keeni doonaa. cPanelkeena loginkiisana la keeni doonaa. marka annaga ma haysano hadda username iyo password. okay, aan aragno. waxaana la keeni doonaa cPanel login username iyo password aa nagala rabaa. marka halkan markaa joogno portalka laba qaabaa samayn karnaa. in inta aan ka access garayno cPanelkeena waa awoodnaa aan dhahno cPanel launch cPanel. automatic waxaa noola furi doonaa hostgator cPanel account-ki aan ka gadanay ayaa noola furi doonaa. waxaa sugaynaa in control panelki oo noo furo. marka anaga ma rabno inaan qaabkan u access garayno. waxaa rabnaa mar walba aan accountkeena soo galayno inaan ciwaankaas soo qorno kadibna username iyo password aa gelina u baahanna. okay, hadda sidaa aragnaba eriyada waana la keenay. marka annaga sidaan ma rabno. waxaa dhihi doonaa log out ka bax. waa iska xireynaa. waxaa samayn doonaa marka meesha ay ku qoran tahay waxaan ku dhufanaa manage
okay internetka xoogaa igu culus. marka areada markaa joogno waxyaaba badan ka isticmaali karnaa akoonkeena ID-giisa. waqtiga uu naga dhici doono waa bishan 12aad 6deeda. marka uu naga dhaco waxaa nagala rabaa 12.95 marka aan hal bil gadanayno. marka informationkan waxyaabo kale oo arki doonaa. marka waxaa tegaynaa setting. halkan waxaa ka arki doonaa akoonkeena informationkiisa. waxaa u baahannahay anaga usernamekaas iyo passwordkeena ma naqaano. okay waxaa koobiyeysa doonaa usernameka. waxaan gey doonaa halkaas. okay kadibna waxaa dhihi doonaa receipt password. marka aan receipt password dhahno waxaa haysanaa 2 option inaa anaga normal password a abuuro karno iyo inaa isticmaalno generate password. marka generate markaa dhahdo waa 18 god a lagu generate garaynaa password noocaas oo kale ah. marka anaga waxaa sameyneynaa waxaa abuuranaynaa password anaga aan leenahay. okay waxaa fiican maadaama area oo database uu yahay in aad iska adkayso passwordkan. kadibna waxaa dhahaynaa change. sidaa aragnaba passwordka waa updated successful. hadda intaa imaan doonaa waxaa dhahaynaa passwordkeena ayaan gelinaynaa. kadibna waxaa dhahaynaa login. test4 kadibna waxaa dhahaynaa add. waa la diiwaan geliyey. waxyaabo badanaa samayn karnaa. receptia samayn karnaa inaan arday raadino abdirasaaq oo kale iyo wax lamid ah samayno. okay waxaa ku laabanaynaa dashboard area. waxaa rabnaa systemkan inaan online-ka soo saarno. first step waxaa u baahanahay inaan imaado subdomain. waxaa abuuranaa acoon subdomain. akoonkan marka wuxuu noqonaa akoon hoos tegi doono meeshan oo kale. tusaalahan waxaa iska abuuranaa school xaggaas gelinaa. hadhow wuxuu noqon doonaa school.dunbarstudents.com oo kale. halkan waxaa lagaa rabaa folderka ama domainkaaga markii subdomainkaaga lasoo create gareeyo halka uu aadi lahaa. waxaa default ku qori doontaa meeshan oo waajib ah inaad ku qorto public html/. halkan waxaa abuuranaa folder cusub. waxaa dhahaa school create. waa la abuuray. okay marka aan local environment joogno ka soo qaad haddii aad tago my computerkayga waxaa haysan jirnay soo maahan inaad tagno local c zamb htdocs my project waa kan. marka waxaa u baahannahay folderkan inaan ka dhigno zip inaan ka dhigno. waxaa dhahaynaa achieve zip kadibna waxaa dhahaynaa okay. folderkan waxaa u baahannahay inaan online ka soo saarna u baahannahay. labo waxaa noo sii dhinaanayo database-ka.
okay inta uu zip sii noqonayo waxaa tegaynaa meesha aan soo saari lahayn waa kana waxaa loo yaqaanaa file manager wax walba oo quseeyo php iyo html halkan ayaa la soo gelin doonaa public html aan kasii dooranaynaa waxaa kasii galaynaa public html folderka aan soo samaysana waa ka school halkan waxaan dhex dhigi doonaa my project folderkeena anaga hadda maxaa waaye waa school haddii aan rabo new folder kale inaan abuuro waxaa lahaa folder halkaas ayaan dhex dhigaynaa folder kale ayaa abuuri karaa waxaa si dhigi karaa laan folderkan testi nigee oo kale waa lay abuuri doonaa comprise-ka inta uu kasii dhammaynayo ayaan sugaynaa marka waajib waxaa ah zip inaad ka dhigtid comprise-kaaga raar lama ogolo hadda waxaa gudaha u galaa marka school folder inaad soo attach garaya raba waxaa leeyahay upload kadib waxaa leeyahay select file ama drag and drop baa samayn karaa oo waxaa dhihi karaa dumber school inaan soo jiido ayaan halkaas keeni karaa waa sugaya ilaa calaamadan ee halkaas ka imaanaysa ay ka noqonayso green ay ka noqonaysa ayaan sugaynaa okay kadib waxaa dhahaynaa go back folderka in nagula celiyo waa kana waxaa samaynaysaa right click kadibna waxaa dhahaysaa extract kadibna waxaan leedahay halkan dhexdeeda extract ku sameey okay waxaa dhahaynaa refresh waxaa dhihi karnaa go ama waxaa dhihi karnaa reload waxaa dhahaynaa go kasoo noqdo marka waxaa sameynaa folderka dumber schools iyo dumber waayo oo laba xabo u noqday aniga markaa galno dumber schools gudaheeda maxaa kusii jiro aniga dumber schools ayaa haysanaa dumber schoolkaana muxuu noo ahaa intaan ka fiirinaynaa schools ayaan leenahay annaga waxaan dhahaynaa marka dumber school naga delete garey waxaan dhahaynaa skip zipkaana waa iska delete gareynaynaa okay folderkan wuxuu ku dhex jiraa inside school waa furaynaa kadib waxaa u baahannahay waxa inside dumber ku jiro inaan soo qaadno kadibna aa keenna banaankan marka waxaa sameynaa dumber schoolsa gudaha u galaynaa kadib waxaan leenahay select all right click move ayaan dhihi doonaa marka waxaan dhahaa folderkan iska tir inside school dhexgey waxaan folderka inaa ka bax haddii aan rabo laba midaa samayn karaa back ama just one level aa taabanaynaa hadda waxaa ku dhex jirnaa inside dumber ayaan ku dhex jirnaa waxaa u baahannahay markaan haddana inaan soo qaadno databasekeena marka before aanan database ka soo qaadin halkan ayaa imaanayaa si aan database u abuuro waxaa usoo baxaa hoos qaybtan database ayaa imaanaynaa marka aad database abuurayna halkaasaa ka abuuraynaa marka aan rabna databasekeena inaan aragna aan ka shaqeyna halkaas marka waxaa ku hormaraa mysql database okay halkan waxaan gelinaynaa database name default marka database-kaaga waxaa laga horumarinaa username-ka aa kusoo gashay cpanelka dumber st oo kale underscore aa la dhihi doonaa marka waxaa dhahaynaa school oo kale kadib createaa dhahaynaa marka databasekeena muxuu noqon doonaa fiiri waa dumber st school back ayaa leeyahay okay kadibna waxaan sii dhihi karaa back ama halkaasaa ku dhufanaa waxaa rabaa inaan arko database-kayga waxaa tegi doonaa php my admin wuxuu ku furmi doonaa marka aa kilig siinaba taab cusub okay database-keena waa kana haddii aad database kala soo abuurno halkan ayuu noo imaanaa waa dooranaa waxaa rabaa inaan kusoo importi gareeyo databasekan database-kii localki ii yaalay waxaa sameynaa my local ayaan tagaa local host kadib php my admin meeshaan hadda aa galayno iyo waxaa isku dhigma meeshaan keliya meeshaan waxaa mamnuuca in database laga abuuro marwalbaa database soo abuuraysa waxaa tegi doontaa mysql database folderkeena databasekeena waa dumber school okay haddii aa haysano marka some triggers
waa kala reebi doonaa marka anaga trigas maan isticmaalin waxaa dhahaynaa dumber school kadib waxaa dhahaynaa export kadib waxaa dhahaynaa export waxaa noo soo download gareysmay databasekeena waxaa samayn doonaa marka right click show in folder ayaan dhihi doonaa waxaa ku furaynaa notepad plus plus ani text editorka aa haysatid ayaa ku furi doontaa okay waxaa usoo baxaa hoos waxaa ka bixin doonaa some informationska qaar procedureska markii la joogo local waxaa ku jiro diviner root local host intaasaa ku bigaraynaynaa control c control h waxaa dhahaynaa replace meel cidla ah ku bedel replace all waxaa dhahaysaa marka safe waxaa tegi doonaa online-ka kadib waxaa dhahaynaa import kadibna waxaa dhihi doonaa choose file downloads dumber school waxaa dhahaynaa import okay waxaan ugula haystaa column status can't have default value khaasatan markii la joogo tableka link okay marka databasekeeni hadda waxaa loogu shubi doonaa qaab qaldana loogu shubay marka waxaa sameynaa databaseka ayaan dooranaa routines ayaan dhahaynaa waxaa iska cancelaynaa informationkan aan ku shubnay halkan marka local markaad joogtid mysqlkaaga rules fara badan ama shuruuc fara badan ma lahan laakiin online-ka markii la imaado waxyaabaha qaar lagama ogolaa doono okay waxaa tegaynaa tablekan linki aan ku dhufanaa structurekiisa waxaan ugula haystaa columnka waxaa u malaynaa inuu ahaay status default wuxuu haystay active ayuu haystay waxaan iska dhahaynaa null ayaa iska dhahaynaa iska qaato sidoo kale activekiisa ku celinaynaayo waxaa qaldan hal shay ka bixinaynaa waxaa dhahaynaa change dat typeka ayaan ka bedelaa waxaa leeyahay farkar inta badan textiga ma qaato default value ma qaato waxaa dhahaynaa safe haddana waxaa dooranaa database-kayga markaan waxaan iska tiraynaa tablinka kadib waxaa dhahaynaa go sorry check all kadibna waxaa dhahaynaa drop the table hadda mar kale ayaan soo dejinaynaa databaseka marka linkiga ayaan saxnay linkiga taybalo badanaa ka dambeeyo userka oo kale iska fiirinaynaa asigana status farkar waaye kan makis haddii aa fiirino taybalada statuska haysanayo farkar wuu saxan yahay okay waxaa dhahaynaa marka waxaa sameynayna marka aad dejinayno waxaa dhihi doonaa export kadib waxaa dhahaynaa custom hoos ayaan u baxaynaa waxaa dooranaynaa in condition waxaa dhahaynaa waxaa noo abuurtaa procedureka if exist ku dar okay hoosaa u baxaynaa kadibna waxaa dhahaynaa insert ignore export marka haddii markaan qalad uu dhaco hataa waxaa sameynaynaa waa ku celinaynaa kadib asiga istiraayo informationkana mar kale ku shubaayo waxaa dhahaynaa sida hadaayoo kale show in folder kadibna waxaa dhahaynaa edit hoos usoo baax waxaa iska saaraynaa diviner save waxaa dhihi doonaa hadda import choose file number 1 waa sugaynaa okay hadda waxaa ujeednaa import successful
marka hadda haddii aa folderkeeni soo booqana fiiri waxaa tegaynaa subdomains waxaa u baxaynaa hoos waxaa koobiyeysaneynaa linkigaas waxaa tegaynaa new tab waxaa naga dhinaanaya waxyaabo qaar waa arki doonaa waxba ma arkayn waxaa naga maqan connection ayaa naga maqan oo databasekeena iyo front endiga inaan isku xirno hadda wuxuu sameynaa some loading oo isku sameynaa laakiin si saxa nooguma shaqeyn doona saanoo kale iska imaaday haddii aan dhahno waa gelaynaa waxaa dhici doona inuuna qabsado error inuuna qabsado ujeedaa waxaa sameynaynaa marka connection ayaan abuureynaa waxaa tegaynaa home pageka marka connection markaa sameynaysa laba midaa sameyn kartaa cpanel userkaaga waa ka dhigi kartaa connection inta badan waa laga fiican yahay waxaa imaaneynaa mysql database hoos ayaan usoo baxaynaa waxaa abuureynaa username school magaca arta marka usernameka wuxuu noqonaa dumber st underscore school waxaa isticmaalaynaa password waxaa iska dhahaynaa passwordka no generate garay marka aad generate dhahaysid waa inaad iska ilaalisaa passwordkaaga inay ku jirto calaamada dollar sign hadduu ku jiro waxaa dhahay generate maanta o dhan aa ku raadinaysaa kadib copy waxaa dhahaynaa waa koobiyeysanay kadibna use ayaan dhahaynaa waxaa abuuranay user iyo passwordkiisa create marka si uusan nooga dhumin waxaa imaanaa folderka connectionkeena wuxuu ku jiraa annaga hadda php folder kadib con.php ayaa ku qoran waxaa dhahaynaa edit kan oo kale marka mar walba ku weydiina waxaa iska dhahaynaa disable mar kale hana weydiinin waxaana loo furay folderkan meesha passwordka balaankiga ah waxaa dhigaynaa koobiga aa wadano wax koobi hataa ma soo qaadin mar kale ayaan ku laabanaa waxaa dhahaynaa back ama waa ka window via isticmaalay waxaa kaloo isticmaalaynaa usernameka aa abuuranay aaway waa kana noo koobi gareey meesha root ah ayaan ku bedelaynaa database-keenana dumber school lama dhaho waa iska bedelaynaa waxaa imaanaynaa php ma admin waxaa dooranaa database-kayga halkaas kore ayaan ka koobiyeysanaa waxaa dhahaynaa database-keena waa ka safe marka waxaa u baahanahay userkan iyo passwordkan inaan isku xiro meesha ay ku qoran tahay add user to database userka iyo passwordka databaseka ayaa dooranaysaa userka kadibna waxaa dhahaynaa add sidoo kale waxaa siinaynaa some privilege waxaa dhahaynaa all privileges ka qaado kadibna waxaa dhahaynaa make changes hadda systemkaaga imow refresh hadda ayaan geli doonaa mar kale login waxaana haysto cilad ah dumber school php login.php this page not working anaa lahay waxaa tegaynaa marka waxaan dhahaynaa login.php nofur waxaa la wacay connection dheg marka waxaa sameynaynaa filekaas ay ku qoran tahay error log ayaan furaynaa edit wixii qaladaadoo dhacay cpanelka halkan ayuu kuu keeni doonaa waxaa nagula haystaa login.php len 7 ayaa cilad ka jirtaa waxaa sameynaynaa marka waxaa hubinaynaa informationka databasekeena ayaan ku laabanaynaa waxaan dhahaynaa all ignore procedure waxaan imaanaynaa procedurekeena waxaan dhahaynaa login my username ayaan gelinaa kadibna waxaan gelinaynaa passwordka halkan waxaa ujeednaa inuu jiro error illegal mix of collation utf8 general ci sorry waxaa ilownay markaa databasekeena abuurayno in collation wax loo yaqaano aa siino waxaa sameynaynaa marka databasekan oo dhan waa tiraynaa waxaan imaanaynaa
area oo mysql database waxaan dhihi doonaa mysql database halkan ayaan imaanaa waxaan sameynaynaa databasekeena waxaa dhahaynaa delete kadibna waxaa dhahaynaa delete hadda ayaan abuuraynaa new database school isla magacii kadibna waxaa dhahaynaa create database inta ayaan imaanaynaa refresh marka databasekeena markaa doorano waxaa imaanaynaa operation kadib meesha ay ku qoran tahay collation ay ku qoran tahay soo furaynaa kor ayaan u baxaynaa UTF-8 group ayaan imaanaynaa kadibna waxaa ka dooranaynaa UTF-8 general CI kadibna go ayaan hadda ayaan kusoo shubaynaa informationka choose file intaas unbaa naga khaldanayd okay marka uu ku shubmo waxaa u baahannahay maadaama databasekeena aad tirnay databaseka iyo userka inaan isku soo xirno ayaa u baahannahay hoosaa u baxaynaa waxaa dhahaynaa add kadib check all kadibna safe inta ayaan imaanaynaa kan waa localki ka bax inta imaanaynaa waxaa dhahaynaa username and password kadibna waxaa dhahaynaa login sidaa aragnaba informationkeeni cpanelka ayuu informationkeeni saaran yahay waxaa dhahaynaa registration waxaa diiwaan gelinaynaa shifty la dhahaayo test waa la diiwaan geliyey waxaa tegi doonaa tableka noo haayo shifty ayaan tegi doonaa waxaan arkaynaa in la diiwaan geliyey sidoo kale waxaa hubinaynaa kan waa local host naga xir waxaan hubinaynaa inaan diiwaan gelino tusaale ahaan ama some report ayaan sameynaynaa examination waxaan imaanaynaa exam result inaan imtixaanka natiijada fiirsano waxaa dhahaynaa fasalka grade 1 imtixaankaas oo galay sanad dugsiyeedkaas search waxaan haysanaa ardaydii some dhibcihii sidoo kaleetana waa dynamic query ama buffer table informationkeena ayaa haysanaa waxaan u malaynaa all shaqada aan qabanay inay okay tahay waxaa imaanaynaa areadan waxaan qoranaynaa documentation mar allaala markaa cpanel accountkeena soo galno waxaa u baahannahay marka ugu horeysa inaad abuuratid subdomain okay subdomain markaa abuuratid waxaa u baahan tahay folderkaaga inaad ku sameysid import ayaad u baahan tahay kadib waxaa u baahan tahay inaad abuuratid database inaad abuuratid ayaa u baahan tahay saddexdaas qaab ayaan ku maareynay aad iyo aad idin kaga mahad celinaa daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu